وليد بالمرة مو شاطر، تعرفوا ليش؟ عالصوم بالمرة مو شاطر، قولكم ليش؟ قولي ليش. دايما بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى، ما بيرضى يضبها وبتبقى وليد بالمرة مو شاطر، تعرفوا ليش؟ عالصوم بالمرة مو شاطر، قولكم ليش؟ قولي ليش. دايما بلعب بالألعاب وبيترك الغرفة فوضى، ما بيرضى يضبها. نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد magacaygu yahay Qani Khadar Daahir kana tirsan ardayda dhigata dugsiga Al-Shaad Secondary School. maanta waxaan sameynaynaa hibada ardayga ama waxaan soo bandhigaynaa qof walba Ilaahay wuxuu baray. maanta anigu waxaan sameynayaa metal with water, marka biruhu la falgalayaan biyaha laba loo qaybiyaa, waa cold water iyo steam water. cold water waa biyo aan dab la taabsin oo biyaha caadiga taabkeena ku jira. steam waterna waa uumi biyood. haddaba cold water ka yaa la falgala, waxaa la falgala all group 1 and some of group 2. waxaanay soo saaraan magnesium, waxaanay soo saaraan metal hydroxide plus hydrogen. steam water kana waxaa la falgala magnesium iyo barium iyo waxaa la falgala transitional metals cordon. haddaba waxaanay soo saaraan metal oxide plus hydrogen. haddaba aan tijaabina waxaan sheegnay imika. ugu horeyntii waxaan haystaa lithium waa group 1 waana more reactive than group 2 waana ka reactive badan tahay group 2 ga. iyadaan tijaabina markiiba way la falgelaysaa biyaha. imika waxaan ku ridinaa lithium biyihii baan ku dhex ridinaa. after few seconds way la falgelaysaa, hydrogen dibadda u baxaysaa, manay quusina way sabeynaysaa, waa less density more reactive. hydrogen wata dibadda u baxday, bubbles of hydrogen dibadda u baxday. wana aragnaa intuu reactivity ku socdo birta labaad aan ku ridno. birta labaad oo noqonaysa potassium bay noqonaysaa. birta labaad aan isticmaalino reactivity biraha inay reactive badina waxa lagu gartaa sida loo ilaaliyo. potassiumka laba culbadood baa lagu ilaaliyay si aanay ula falgelin oxygen-ta. potassium on haysto, potassium sida leeg way ka reactive badantay lithium laakiin waa group 1 waana ka reactive badantay. markiiba uu taala falgashiyo seconds ba may sugin. birteeda saddexaad aan isticmaalaya waa calcium waa group 2 way ka reactive yar tahay dan group 1. group 1 ka reactive badan waana ka density badan tahay group 1 ka. falgalkeedu uu socdaa laakiin uu ka reactive badan yahay group 1 ka, uu ka reactive yar yahay group 1 ka. dhulkan uu quusay isagu waa more density. birteena afraad ay noo hadhay waa magnesium waxaan nidhahnaa waxay la falgashay steam waterka inay kaliya la falgasho. maxaan ku hubin karnaa? waa inaan eegna cold waterka inay la falgalaysiin kale. cold waterka ayna eegna imika. magnesium tiban cold waterka ku ridayna waxaan eegnaa inay la falgalaysiin kale. lama falgalayso, no reaction. haddaba marka waxaan birahan oo dhan biyaha la falgalaan waxay soo saaraan waa base. laba indicator baan isticmaalay, waa phenolphthalein iyo unifertile indicator. phenolphthalein to base waxay ka dhigtaa pink, acid dan waxba kama bedesho. laakiin unifertile indicator wuxuu ka caawinayaa inuu pH numberka ku sheego iyo inuu base yahay inuu acid labadaba uu ka raacinaya. phenolphthalein-teedaan ku tijaabiyay markii horeysa beakerkii ay igu jirtay potassium baan ku eegay waa base pink uu ka dhigay. laba beaker baa hadhay, labadeeda beaker aan ku eego phenolphthalein-ta universal indicator kan ku eego.
universal indicator-kayga waxaan ku riday beakerkii ay ku jireen calcium iyo water waxaanu soo saaray 14 waa base beakerkayga saddexaad aan eego inuu base yahay in kale waa kii lithium-ka iyo water-ka falgaleen waxaanu soo saaray 14 waa strong base buu soo saaray maanta casharkayga barta ku soo gudbin intaas iigu eegay alxamdulillah assalaamu calaykum waraxmatullahi bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacaygu waa Mumtaaz Jaamac Nuux maanta barnaamijkii noo socday qaybta tijaabadeeda aan sameyn doono aniga waxa weeyaan metal oxides hadan yara sharaxna waxa weeyaan waa bir lagu darayo oxygen markay isku gubtaan waxa noqonayaan metal oxides kala yiraahdo birahan isticmaalaya waxa weeyaan waa potassium lithium iyo magnesium potassium iyo lithium magnesium way ku kala duwan xagga reactivity-ga oxide kelmadda la yiraahdo laba loo qaybiyaa waa oxides iyo bare oxides waxa sameeya group 1 laga reebo lithium oxides kan inta kala sameeysa imika waxaan ku gubayaa waxaan ku darayaa oxygen ma ku gubayaa aynu eegno waxa soo baxaya waxa weeyaan base baa soo baxaya basekaasi laba u qaybsan doonaa marka biyaha ku daro inuu ku milmo oo soluble base wada noqdo iyo inuu ku milmo waayo in soluble base wada noqdo aynu eegno biraha soo baxa soluble iyo insoluble soo kala bixi doona kalarka ay bixinayso biruhu markay gubtaan kuwa light-ka ugu badan bixiya waxay noqonayaan biraha la yiraahdo magnesium imika way wada gubatay waxaan isku bedeshay base-ka aynu eegno inuu noqdo soluble base iyo inuu noqon doono insoluble base biyahan ku dhaxridaya saad wada arkaysaan potassium xaggaasaan ku gubay tan birta inoogu xigtaa waxa weeyaan bir aad u reactivesan waana arkaysaa sida loo ilaaliyay laba meelood baa la iskaga dabriday birta ku xigtaa waa potassium iyadana sidoo kale waxaan ku gubayaa oxygen-tii potassium iyaduna sidaas ay oxygen-ta imika ugu gubatay iyadana sidoo kale waxa ku daraya biyo si aan u ogaado inay tahay soluble base iyo inay tahay insoluble waxaan sugaynaa waa intay birtu wada fadhiisanayso ee isku wada bedelayso base ee isku wada bedelayso dabkaasina uu ka istaagayo dhammaanteed biyihii baa si tartiiba aan ugu ridayaa potassium iyadana falgalkeeda halkaas ayuu ku dhamaaday waxa weeyaan lithium iyaduna waa birta ugu reactivesan aan ilaahno waxa lagu dhex ilaaliyay saliid dhexdeeda waayo waxay degdeg ula fargelaysaa oxygen-ta si aan oxygen-ta isku arkin waxa lagu dhex ilaaliyay bir saliid baan ka wadaa waxa soo baxay sidii u kala duwanaan doonaan
tani waa birteeda kaligeed baa laga soo reebayaa minus oxygen waxay noo haray oo kaliyaata intii fadhiisanayso ay noqonayso base si aynu uga eegno biyaha inay noqoto soluble iyo inay noqoto insoluble biyaha noo harsan waa kan labadii birooda kale waynu tijaabinay lithiumna aynu eegno waxa ka soo baxayadana saddexdii xawayaan potassium waxaan ku riday magnesium tea tan waxaan ku riday sidoo kale potassium tea tan ugu dambeysayna waxaan ku riday lithium tea halka waxay nooga muuqdaa birta kaliya ee noqotay insoluble base aynu halkan ku haysanay saddexda biroodan haysanay waxay noqotay magnesium iyadu may milmin kaligeed base daagsatay dhamaantood waxa soo wada baxay base metal oxides waxa ka soo wada baxay base laakiin birta ka duwanaatay ay noqotay insoluble base waxay noqotay magnesium labadii kalena way milmeen sida arkaysaan halkaas ay ku soo gabagabinayaan tijaabadii bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Caydiid iyo dhigta dugsiga sare ee Lishaad Secondary School xagana ku suganahay waa laabka dugsiga sare ee Lishaad Secondary School intaana tijaabada ama waxaan mowduuca maanta ka hadlaynaa intaan gudagelin waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda dhigata dugsiga sare ee Lishaad Secondary School maanta sidaynu hor yaala waxaynu sharaxaynaa mowduuc ku saabsan skeletonka oo maadada biology-ga ah intaan ku guda jirno barnaamijkeena waxaanu isweydiin doonaa muxuu yahay skeletonku iyo waxyaabaha uu qaybsan yahay iyo functionka ama shaqada muhiimadda uu leeyahay noolaha sida ognahay skeletonku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood oo waaweyn qayb la yiraahdo exoskeleton oo cayayaanka iyo waxaas oo ka samaysan maado la yiraahdo chitinka qayb kale la yiraahdo endoskeleton oo humanka sida human skeleton oo kala iyo qayb hydroskeleton la yiraahdo sida dirxiga iyo waxaas oo skeletonkooda uu water ka samaysan yahay shaqada functionka hadaan ka yara hadalno skeletonku shaqo muhiim ugu jira noolaha shaqada koowaad waxa weeyaan waa support ama inuu siiyo shape uu siiyo noolaha qaybta labaad oo ah protection inuu ilaaliyo xubnaha vital organs loo yaqaan sida brain-ka oo kale heart-ga liver-ka oo kale inuu ilaaliyo spinal cord-ka kale sidoo kale waxa weey waa site of production in red blood cells ama white blood cells oo kale ayuu soo saaraa waa storage of minerals calcium-ka iyo phosphate-ka oo kale haddaba maanta mowduucan wuxuu gaar u yahay endoskeleton gaar ahaan human skeletonka marka la sharaxayo waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn oo loo qaybiyo axial skeleton iyo appendicular skeleton axial marka labada qaybood baa iyaguna si kala qaybsamaa axial skeletonka haddaan tusaale soo qaato waxa weeyaan intan oo aan intaas ku jirin axial skeletonka intaas la oranayaa waa axial skeletonku wuxuu ka sii kooban yahay markaa iskalkii oo intan ah iyo vertebrates oo ah lafta xangulaha ama lafta dhabarka iyo rib cage qaybtan oo saableyda saddexda qaybood buu ayuu axial skeleton ka kooban yahay appendicular skeletonku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo loo qaybiyo limbs iyo graphical marka limbsku waxay noqonayaan four limbs iyo lower limbsku markaa waa labada lugood four limbskuna waxay noqonayaan labada gamacood lower limbsku waxay noqonayaan waa lugaha oo laftaasa iyo four limbska oo ah gacanta oo hantiya sidoo kale qaybtan markaa waa limbs baa la isku odhanaya qaybta labaadna waxa weeyaan graphicalka waxay ka kooban tahay balfiga iyo shoulderka scapula iyo graphicalka oo isla socda iyo qaybtan la yiraahdo balfiga marka sidaan ognahay waxaan ka soo booday ilmaha markuu yar yahay wuxuu leeyahay 300 lafood dabeetana markuu karo uu majuur noqdo ama uu adult noqdo
lafaha qaar waxay sameeyeen fuse together oo hal laf bay isku noqdaan marka sida caadiga qofka qaangaadhka wuxuu leeyahay 206 lafood bal haddaan yara sheegno lafuhu sidii u kala leeyihiin qaybtan aan ku sheegnay axial skeleton waxay ka kooban tahay 80 lafood qaybtan appendicular-kana waxay ka kooban tahay 226 lafood marka qaybta iskalka ee axialka hoos tagtaa waxay ka kooban tahay 22 lafood qaybtan vertebrate-kuna waxay ka kooban tahay 26 lafood sidoo kale rib cage-ku wuxuu ka kooban yahay 12 lafood oo qaybtana 12 iyo qaybtaas 12 bas ku noqonayaan marka waa 12 beerisa qaybtan appendicular-ka waxay ka kooban tahay waa qaybta ugu lafaha badan waxay ka kooban tahay 126 lafood marka forelimbsku waxay ka kooban yihiin 60 iyo lower limbska lugaha ka kooban iyaguna 60 waxa soo raaca 6 lafood wax soo raaca oo si kalisa marka haddaynu sii sharaxno imika hanti waatan gacantii oo ah forelimbska qaybta example-ka oo ah lafta gacanta oo ah forelimbska waxay ka kooban tahay sidaan sheegnay 30 lafood 30 lafood iyo taas 30 lafooda waa 60 lafood marka 30 lafood qaybta koowaad waxa loo yaqaanaa huyumar oo waa qaybta cududa huyumar baa la yiraahdaa oo waa hal laf qaybtan kale hand waxa ka kooban tahay 2 lafood oo la yiraahdo radical iyo ulna sidoo kale qaybtan gacanta waxa la yiraahdaa tarbalisku waxa ka kooban tahay 8 lafood oo xaga tarbaliska qaybtan metacarpaliska iyaduna 5 lafood ka kooban iyo qaybta fatigin ama finger boneska oo ka kooban 14 lafood marka gacanta kaliya waxa ka kooban tahay 30 lafood gacanta kale waxa ka kooban tahay 30 lafood 60 lafood weeyaan xaga sidoo kale marka waa forelimbski 60 lafood ka kooban lower limbskuna waxay ka kooban yihiin iyaguna 60 koodii aan soo qaadana lugta koowaad oo ah lugtana ugu dheer oo loo yaqaano femur wax ka kooban tahay lafood qaybtan kale ee lugta wax ka kooban tahay fibula iyo ulta ay ka kooban tahay qaybtan kale carpal ba iyadana la yiraahdo xagga gacanta ka hay tarbal xaggan carpal balaanaya waxa ka kooban tahay 8 lafood iyo metacarpal ka kooban iyadana 5 lafood iyo qaybta hore finger boneska iyadana ka kooban 14 lafood sidaan soo sheegnay weeyaan marka appendicular-ka waxay ka kooban yihiin 126 lafood haddaynu u nimaadno qaybta vertebrate-ka oo iyadana ka kooban 26 lafood toddobada lafood ee ugu horeeya waxa la isku yiraahdaa cervical marka waa inta luqunta ku jiraan labada lafood ee ugu horeeya waxa la yiraahdaa atlas iyo axis baa la kala waxay shaqadoodu tahay movement of skull ama madaxa dhaqdhaqaaqa madaxa ayaabay ka mas'uul yihiin toddobada lafood waxa ku xigeen 12 lafood oo loo yaqaano thoraxis kuwaas oo haya rib cage-ka taageera 12 marka todoba loo geeyo waxa 19 thoraxka waxa ku xiga 5 lafood oo loo yaqaano lumbar iyaguna abdomen-ta qaybta abdomen-ka haya waxa ku sii xiga 3 lafood oo loo yaqaano scaral iyo 2 lafood oo ugu dambeeyo oo loo yaqaano cacus oo qaybta dibkiisa waxa qaabilsan guud ahaan marka humanka de skeletonkiisu intaas ka kooban yihiin Abdullahi Maxamed dugsiga sare ee Rashad Secondary School maanta halkan joogno lab science-ka dugsiga sare ee Rashad Secondary School maanta waxaan doonayaa sameeyay tijaabo ah horta haddii noqoto dhinaca chemicalska waxaan isticmaalayaa calcium carbonate iyo magnesium dioxide baan isticmaalayaa iyo halkan ay ku jirto sulfuric acid hydrogen peroxide iyo halkan ay ku jirto acid magaceedu yahay sulfuric acid haddaba maanta waxaan tijaabinayaa effect oxygen iyo carbon dioxide-ka halkan waxay ku jirto san hore u sheegay hydrogen peroxide waxaan ku darayaa magnesium dioxide baan ku darayaa halkan ay ugu jirtay acid magaceedu ha sulfuric acid waxaan ku darayaa calcium carbonate baan ku darayaa
sad halkan arkaysaan waxa igu jiray wax san hore u sheegay waxa igu jiray hadaba bal aan sheego imka waxbaad arkaysan Soomaaliya bal wixii dhacaan in sheego halkan waxa igu jirtay hydrogen peroxide waxa uu qaysamaysaa laba water iyo waxa uu qaysamaysaa oxygen tasan ogahay dabka falgalka dabka way xoojisaa dhinacna waxa igu jiray calcium carbonate sulfuric acid waxaana soo baxay salt iyo water iyo carbon dioxide san ogahay carbon dioxide kuna dabka ma kala shado baqtisma